doorashada madaxtinimo ee maamulka Xamin iyo Xeeb ayaa maanta waxa ay si toos ah uga bilaabatay xarunta madaxtooyada magaalada Cadaado iyadoona xilkaasi ay ku tartamayeen 3 musharax iyo sidoo kale hal musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Xamin iyo Xeeb howlka madaxtooyada magaalada Cadaado oo ay doorashadu ka dhaceysay ayaa waxa xaadir ku ahaa mas'uuliyiintii hore ee maamulka Xamin iyo Xeeb saraakiil ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana si aad loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada Cadaado gaar ahaan waaxiga ay doorashadu ka dhaceysay inta kadib waxa bilowday codeynta musharaxiinta iyadoona ay wax dooranayeen 23 xildhibaan oo iyagu dooranayay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana markii ay dhamaatay codeyntu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Xamin iyo Xeeb Cabdullaahi Faarax Sandheere codadkii waxay kala noqdeen sida hadda uu tilmaamay waxay noqdeen musharaxa Cabdullaahi Cali Maxamed wuxuu helay 20 cod musharaxa Cismaan Maxamed Calina wuxuu helay 2 cod musharaxa Cali Amiin Said Axmedna wuxuu helay cod sidaa darteed waxa ku guuleystay xilka madaxweynenimada maamul goboleedka Xamin iyo Xeeb 3 sano oo soo socota laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 13 bishii 6 2013 lagana gaaro 3 sano oo soo socota waxa ku guuleystay mudane Cabdullaahi Cali Maxamed madaxweynaha maanta la doortay ee maamulka Xamin iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Kidiye oo hadal kooban ka jeediyay munaasabada ayaa waxa uu sheegay inuu xoog saari doono nabadeynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya isla markaana uu gogasha dhigi doono magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Xamin iyo Xeeb intaan ilaahay ku xamdino aan gogashii ugu horeysay oo loo dhigo ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolada dhexe aan horseed u noqono anigoo ah hogaamiye cusub waxaan ku dhawaaqayaa gogashaas inay wixii maanta ka bilowday ay diyaar tahay qof walba oo Soomaaliya oo meel walba oo Soomaaliya ka mid joogana in laga martiqaadi doono wax walba oo ku baxana dhabar ku dhiganaya hadii la dhigo علي أمين سيد أحمد يا عثمان محمد علي السعدال ومانتي لوجا جوليست doorashada ka dhacday magaalada Cadaado ayaa waxay sheegeen inay la shaqeyn doonaan musharaxa maanta ka guuleystay isla markaana ay gacan ku sii doonaan wax waliba uu kaga baahdo si toos ah u aqbalay natiijada ka soo baxday doorashada dadkana waa u shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo waa lagu taageeri doonaa anna waxaan ballan qaadayaa hadii Ilaahay aqoonta iyo khibrada aan leeyahay iyo barnaamijyada aan wado inaan Cabdullaahi ku wareejiyo insha Allah taala ugu dambeyntii munaasabada lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Xamin iyo Xeeb ayaa waxa soo xiray madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Xamin iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Macalin Maadan Tiicay annagu waa soo gaarsiinay maamulka Xamin iyo Xeeb inay doorasho xor ah yimaadaan inay kala dambeyn timaado in amni yimaado in adduunka maaragtay Xamin iyo Xeeb recognition ka yeesho wixii oo dhan waa soo gaarsiin waxaan raadin Allah ma balaqto ilaahayna marxaatu ka yahay soo gaarsiin waxa laga rabaa inay guntiga u xirtaa maamulka cusub ee madaxweynaha Mudane Cabdullaahi uu yahay madaxweyne ku-xigeenna uu yahay Korneel Cabdi inay noqdaan dadkii meeshaas ka sii qaadi lahaa isla markaasna gaarsiin lahaa next step بعد ما أنت مجالات عداد حرمت الدولة الجبلات كحمرية حابس لما كان الوجود تمدح وينها يمدح وين حجين كايا وحي بصورة ما تجوي حصلون غير فارح